lahayd Ali ibn Abi Talib ayuu nabigu ciidan u dhiibay dagaal baa la galay Khaybar meesha la yiraahdo labadii maalmood hore waa la furan kari waayay wuu adkaaday dagaalkii maalin saddexaadii ayuu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam in ilaahay jecel yahay ilaahayna jecel inuu raayada loo dhiibi doono Ali xanuunsan ayaa loo yeeray nabiga u duceeyo ku tufay waa bogsaday Ali baa la yiri ciidanka hogaami dagaal buu galay hadda channel dagaal galisay maxaad kula dardaarmi lahayd nimanku iyaga ka baxsan Soomaha si fiican dagaalka u gal ma nabigu wuxuu kula dardaarmay fa wallahi لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم حنبو كلا دردان إلهي بان كل دارته مد قرأ كم مدى قال داين إلهي كو صحرونيو أيا كاغا خير بدن قال كيس عساس يعني إنا ودنك فرطان وغنيمة يحول بدن هشام وطلعنا قال دينا والله xoolana waa ka soo helay waxa ka faa'iido badan buu nabigu leeyahay mid kamid ah inuu diinta qaato marka asalka qofka mu'minka xataa haduu goob dagaal joogo dadka la maaha hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha hadafkiisu waa dad inta inay faafto hadafkiisu waa inuu dadka naar ka badbaadiyo